daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij la magac baxay wax ka baro bulshada. barnaamijkan waxaad la socodsiinaysaa aniga Amira Cabdullaahi Caliya. barnaamijkan waxaa inoogu martiyaan Maxamed Toosi oo kamid ah abwaanada gobolka Saraar ee magaalada Caynaba. وعن ونكسن داوديال نكست اللي سعوتنا برنامجي wax ka baro bulshada محمد برنامجي wax ka baro bulshada waxaan ku soo qaadanaa shakhsiyaadka inta badan caanka si aan uga wareysano taariikhdooda iyo waxyaabaha inooga aqoon badan yihiin halkan inta waxay inoogu martiyaa maxamed oo ku magac dheer abwaan Toosi oo ku magac dheer abwaan Toosi soo dhaw barnaamijka wax ka baro bulshada magacaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحاب حسين جامع وكم مقعلي أبوان توسي أدبا ذكي معي العلنية تبادها صحافة التهين أما تيفية هذه السنة ولا سنة وقت قبل مشوار ساديات بنقوم هذا علينا وصلوا برنامجك واحد هي كل أبوان ذوق فاي محبوب قار شعب قار ماسوية قار وابوان عادية markaadu hadaa tahay abwaan waxaad ku dheeraysaa xagga gabiyada iyo masuulka inta badan qof wax buu muhiimada siiya marka waxa la yiraahdaa waa seef waxa la yiraahdo gabiga ama waxa la yiraahdaa xigmadu marka wadii ah qofku wixii lahay uu ka siiyo ah oo sida hoosada qofku ilahay wuxuu ka siiyo marka waa seef ma leeyahay qofna qofkii xagga xunka adeegsadaana waa seef xaqooynaysa xagga waxa kale soo seef marka aniga intii ilaahay uu alhaamayo waxaan isku dayaa ama aan muhiimada siiya inaan ka hadlo nabadgelyada iyo dadka suulintiisa iyo taslaaxa sida ku cad maasooyinka ama gooyada horta dasaasu taqamo sida lagu yaqaan bulshada qiimeyn doonta marka qofka masraxa u soo baxo marka hore wixii xidmo taqaan laakiin masraxa u soo baxo kitiyada uu leeyahay bulshada dhexdeeda ayuu dad ku yeelan doonaa wixii qiimeynta uu leeyahay taa bulshada u taala laakiin xilliga hadaan u noqdo su'aashu laba qaybood bay xilliga hadaan u noqdo aan isku dayay inaan wax sameeyo aniga oo yar ayaan isku dayay halabuurka waxaana dhaqankayga hore u yar badnaamiga ayuu ahaa laakiin sayna wax ka qabto ama dadku wax uga faa'iideeyo ama wax ka qabto waraan iska reebo ama aan ka sameeyo barnaamij qiimaha ay suurtoobin marka hore muhiimada ma siin inta si aan sidii aad bulshada wax uga faa'iideysi way dhuwi محمد أبو سعد الشاش كل الدماء تبلغ والله سيارة ولا تبلغ سيدا سكول لا تبلغ حاجة واحدة عشان سيسكتي حاجة واحدة برشة لا كل واحدة برشة وان غير مي بانها أنا وين وان تصير بحاء ملاها سنجاري لا تجد عقل ما شاء الله مرة سالم بنات بيتها واحد يسوق قبل واحد على ما أنت واحد صدح لما ما سوق يقبل أنت ما أنت عندوني هكذا ندي وقته وقت دونا سامحه أنت واحد كهلا أنا بده يدا يدا أو سيجارة أيو تابانيا تذكيو ملول واحد مغلي تدين وذاك تذكر هالكا ودقن ودن وذاك تذكر قبل هبلت دقن ودن وذاك تذكر من هبلت دقن ودن وذاك ووصل علي واسكو نول بوها حدنا ما أنت سيدي وحتركيس أي دفتيس أي دليل سهان شرتاي كنت المان سهان شرتاي أياد مهداين وحيالاتي أي تلمان كنا غطيو واحد مغلي سيبروشين كي مال هبل مدمي انقلاف كي مال هبل مدمي marka waxa xadron karta wax xaalad soo korodhay isbedel kana waxa sameeyay dadka adiga badan ma santaa hadii aan masuul kooda hayto kooda masada kooda waxa la yiraahdaa taslaax ولكل واحد جرى أنا حتى كم دوام تسليح هاي رفاسين هذا ما فاعله تسليح هو إن
wax kasta khilaaf kasta ama dhibaato kasta ama iska horimaad kasta laba qof ha noqdo bulsho dhexdeed ha noqdo laba dhinac ha noqdo in lagu dayo iyadoo aan meel kulul la marin garna la marin isqabsi iyo waxa weeye dagaal iyo muuquun isnaana wax ku dhammaan kara bal in lagu dayo mar kasta muhiimadda 90% la siiyo in tasleex iyo si la isugu tanaasulo la isku dayo marka tasleex waxa la dhigantay wanaag aba nasteexay ayay la dhiganto waxaan leeyahay war dadka wixii kale shaqooyinkii kale dhacid baa loo qaybay laakiin tasleex iyo dadka isu jiidkiisa waxaad moodaa inaan cid loo qaybin marka waxaan leeyahay tasleex cid loo sameeyo gaaro ka shaqeysa adiga nimka ku xilsaarna ku sameynayna bal ma sida hadda kida gashay وصح لها قبيلة وعبيب عدوى يانا بسلين بركي سنة عيرين يهي قلبك وعذر كدعة إلا ذو يان قرصون عمبار ويان قتل هدان عقل قابك هي عرورتي ما تدي عيال كبل قدو عقاش هدان السعون عقاش هدان السعون هدان عذكركو يسو تجين عروله سما كتل كسون كلوي الرولوه سما كتلين تسليح عد لو سمين أدون كينا عمرن ويا لقى عيشي عصمة به نبعد عرقينا كان ويا الغبي عيار لو دار قبيلته وعنصري عقبل آدني قهرتها هرومر كواو عدو إبليس كعول كيسة إيا عذاب كي وهلوتها إبليس كعول كيسة إيا عذاب كي وهلوتها عقيدة إيه عقلك السحابة ودوها حدان علماء دعين دمان 10 سيرينين علوم تكون تمرعين تسليح عد لو سمين أدون كان عمرن ويا لقى عشي عصمة به يبعد عرقينا يعرف الغبي يعير ضغي تسليح وانت سوح عليه تسليح عد الله سمين تسليح عد الله سمين لما سأسي أرضي قد بدنا وقت هذا نسابان ملين هل إن شاء الله بإذن الله كان اللي رب بدنا nasteexadu ka yara maqatin oo dhigeysan doono marka wacyi gelin bay bulshada u tahay hadii aynu kurka laaba aynu gudan kale kabay kulli kabaya naaso waxaan ku rilisma gaari fari kama qadno marka gabayga haday u yara kurgal gabaygaas wuxuu ku saabsan gabaygaas waa gabay wacyi gelina wuxuuna igu dhashay bishan lixaad bishii way ahayd bishii shanaad ee iminka dhaaftay adigu 10keedii inay ahayd baan filayaa wuxuuna ku saabsanaa ay ku dhalisay arrintan iminka de wax kasta waxbaa kugu dhalay wuxuu gabay haddaan caraad loo lahayn ama sicilkiina ama caada lagu dooray ma cilaadid nin hore baa yidhi wuxuu markay wax soo kordhaan ayay wax ku dhalanayaan marka arrintaas waxaa jirta iminka waddankeena arrin xaggan bariga ka jirta meel la yiraahdo ceelaf weyn iyo aduu gobolkan Sanaag deegaan xukumo waxa degi jiray dad la yahay habar lama oo isku dhaqana oo dhaleeya oo rixima oo casaba oo isku noola oo dan wadaaga oo la oran karo waa dadkaas waa dad isku nool oo dadka iska xigistu waxa weeye ma aha tirsaniyada laakiin soo wada noolaanshaha ayaa la oran karaa marka aqal saliima lagu eegayo arrin baa soo noqnoqotay arrintaas ayaan markaa gabaygaas aan ku waaninaya oo leeyahay warma kala maarantaan arrintaas wanaag laga gaari maayo maxamed gobolka koray adigu mar horena waa taashay marka waxay kaaga dhigantahay nasteexo iyo wanaag nasteexo iyo wanaag dadku inay gartaan waliba waxa jirta maasada baan ku qeexi doono oo aan bal waxtarka dadka uu isu leeyahay bal horta dadka casabadan iyo waxa dadkani oo la gooyo maanta aad moodoon dadkeenin dambe wax kale ku bedelay balse wixii ay ku bedeleen ay waxyaabo inoo muuqdaan maanta inaanay ay waxyaasho dhaqankeena waxashay oo dhaqankeena waa laga sii tiriyay qodob kasta oo laga tagaana hal dadkani lahaabo ayuu la dhacayaa meesha kala baxay ay la noqonay marka taana waan idin duubi doona maaso aan iyadana kuba saabsan dadka iyo dhalinyarada aan kuba tilmaamayo faraacdi dadka waxa ku sheegayo marka gabaygaan horeysiyo imika ma soo bixin laakiin wali daawaysa may waan hadda idin duubay hadda ma duubay in dhaweyd baa hawraar milgale waanigaan mariine mabduu lahaa iyo markii maamkii laga leexshay ee malaawa lagu tirshay ayaan moostay kaygana ee xalay buu manaan igu yimi leyl mirtii dhaxay isagay muquunshay balan midha ka soo qaato murti gabay cismaan baa lahaa
muulla ku ahaa nin Cismaan Daado la odhan jiray inta badan isaguna uu ahaa wuxuu ka shaqeyn isaguna gabayadiisa wuxuu xusi jiray mar kasta dadka dhaleeyada iyo riximka iyo waxa ka hadli soo jiray wariyaha istay gabayna madaba horti gabay Cismaan baa ahaa muulla ku ahaa laba qolo markuu muran dhex galay ee diriire maashaysay tixdii salaan mariyay bay muhiim u qaateen marti ceelaf weyniye sanad way laba qolo markuu muran dhex galay oo diriire maashaysay tixdii salaan mariyay bay muhiim u qaateen marti ceelaf weyniye sanad mamacda gaagaaban mashaqada dhextaal habar lama moolkan dami waaye murti dhaqan waa intuu macmuud ku aqbalo way maalintii tahay murti dhaqan balan ugu gurmada midhaha suugaanta anigu waxaan leeyahay gabaygaasaan ku gurmanaya waxa dawladdu gurmad direysay ciidan iska daba direysay military direysay ka dhex fadhiista bal waxaan leeyahay aniguna waxaan ku deeyaa af Soomaaliga kan ku bal gabaygaasaan ana ku deeyaa bal wax ku qaataan murtideeda aan ugu gurmado midhaha suugaanta magayniye xigaal baa tihiin kalama maarmaane mudaniye dhaleeyad magayniye xigaal baa tihiin kalama maarmaane mudaniye dhaleeyaa tihiin aan kala maqnaanayne dan wadaag milgala baa tihiin oo ismaashaday murxan iyo qaraabaa tihiin meel la wada yaale mudhishi xisaxaaq baa tihiin magacna waa yaab murxunkiyo sokeeye istila maara laga waayo marka uu maslaxu suulo ee xuma la muuleeyo mugdi bay galaan oo ifka madow la saaraayo ma qarsoona aakhirana waa minankii naareed nima intii hore wax moodkood galay iyo meel ka soo qaada nima yahow tolima waa margi macmuudkan idinku dheershay iyo alli magaca weynaaye nima yahow tolima waa margi ee nabadu meel doona oo tala mar bay siibataa maaga keeshii haddii uu mirrago ama qalalo laga mulaax waayo murguf baa ka hadha geed hadduu meedhax leeyahay cuqaal miigan odayaal macna leh culimo miibsaanle mabdabaa nugaal lagu ogaa marin goobadeeda maskaxdii ma guurine ragow dib isu miisaama haddii uu madmadow soo dhex galo ma horto jaaraana haddii mooyi iyo meeday iyo mooyi haddii mooyi iyo maaha iyo meeday lagu rabo waxaan macnaba sii lahayn la isku maandhaafo aan waxaan macnaba sii lahayn la isku maandhaafo maasha iyo boogtoo la dhago malaxda shuuqaysa mabda la isku raacay iyo tolimo meel fog laga doonay muslix iyo samaanta wax badan lagu daweeyaa waa taamankii cunteen iyo magoolkii mid kastoo dhintaa wuxuu ka go'ay labada meelood waa muusanow jaahid iyo shay masiibo ah midigtaada oo aad sii jirtaa waa macna la'aane nimo yahow tolimo waa margi ee nabadu meel doona oo tala mar bay siibataa maaga keeshii ninka iyo haddaad faalka iyo meerisida eegto adduunyada waa mool baa ka jira meel kasta waxaan doonayaa markaa inaan tusaaleeyo bal dadkii kale ee khilaafku intuu dhex maray caqli saliima waaye ka heshiin waaye iyo bal waxay ku dambeeyeen iyo marxaladii waxay noqotay balan tusaale u soo qaato dhul badan oo maanta aynu ka warhayno dariskeena ninka iyo haddaad faalka iyo meerisida raacdo adduunyada waa mool baa ka jira meel kastay tahay masaakiin dhex joogtay iblis baa mindiyaha u tuntay iyo mudacyo shaydaan masaakiin dhex joogtay iyo markii maata lagu laayay sheekh cilmiga marinaya iyo macallin geeriyooday mahadhooyinka birmageydadoodii markay marisay gaaleefta mahadhooyinka koonfuriyaan waydan maqasheene waa aayad wada muuqata oo maanta la arkaayo iyaga ismaqala qoon kastoo murug sameeyaa haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkooda niman yaho macmuudkan idinku dheerji iyo alli magaca weynaaye niman yaho tolima waa margiya maaga keeshii markii Usmaan dheef dhacay ee maara laga waayay Kenya maroorsiga ka dhacay waydan maqasheene malyan qof baa ku lumay dibadbaxyada maalin dhaafka ah ee iyaga ismaqala waa ayad ku muuqata oo maanta la arkaayo iyaga ismaqala qoon kastoo murug sameeyaa haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkooda niman yaho tolima waa margiya maaga keeshii oo tala mar bay siibataa nabadu meel doon mujaahidkii Saddam wuxuu mintiday maalin iyo leyle macluumaad markii laga helay ayaa mooskii loo dhacay dadkiisa u maleegay ma jirin maararow kale Suuriya marxaladda gashay iyo dhamaacda loo miisay muslimka iyo gaaladaba waa la isu maataday marmarsiyo culus baa galay
iyo maada gura dheere wax mashiinka culus loogu riibo ma aha dheeldheele iyaga ismakala qoon kastoo murug sameeyaaye haddaynaan ismaqal waxaynu nahay kuwa masaalkooda nimay macmuudkan idinku dhaartay iyo allii magaca weynaaye nimay yahow tolima waa ayad wada muuqata oo maanta la arkaaye nimay yahow tolima waa margi ee nabadu meel doona oo tale mar bay siibataa maaga ka heshiiye tolo mar bay siibataa maaga ka heshiiye markaa gabadhu intaas kaaga dhigay maxamed gabaygaas tolima waa margi maaga ka heshiiye horta wallaahi uma malaynay maxamed in wax kugu hadhay laakiin intii karaankaaga horta waad kala qayb qaadatay laakiin maxaad ugu baaqi lahayd balyada haddaad maanta gabayga aad ka samaysaan fursadna iskugu hayo bulshada ku dhaqan gobollada la isku hayo amba deegaanada iyo sidoo kale khilaafaadka ka dhex taagan si sideeyaba loo xallin karaa baad odhan kartaa awaanaha waxaan odhan lahaa horta arrintan waa wacyigelin cid kasta oo arrintaas ama ay soo martay ama ay dib usoo dhex mari doontaba way u taallaa waxaan halkan ka tiiri lahaa waxaan odhan lahaa fariintaan u gudbin lahaa waxay tahay adduunka wax kastoo dhaca waa laga heshiiyey markaa talada wax le maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo waxaan odhan lahaa hal midh haddii la helo si fudud baad u heshiinaysa halka midh waxa weeye labada dhinac ee ay wax dhex mareen bal in ay iska baadhaan wax fayow oo caqli saliima ku jiro markaa cudurka iyo caafimaadkaba waa la isu gudbiyaa kuwaasaa waxay heli karaan sidii namo dhallinyaraho og aan arkayey oo arrin sameeyey barnaamij wanaagsan oo leh anagu labadii reer baarnoo saxaad yuunus iyo habar lamaan la isku odhan jiray biciye saxaad oo waxaanu leenahay hanugu daydaan dee dadka kalena laho anagu heshiis baanu nahay nabad ha lagu soo dabaala arrinta leh haddii halkaa laga sii wado halkaa inamaas taabteen oo kale reer og haddii laga sii wado arrintaasi dadka way wada gaadhaysaa waxaana leeyahay walaacolaad sokeeyo dadka way soo martay dad badan bay soo martay waa aragtaa waxa laga dhaxla dadkan uu heshiinayaa in hadhow uu takoornaado sida ninkii dhibta ka qayb qaatay ee ama islaha maanta aarso ama islahaa juhdi iyo qarash iyo waqti iyo halkan ku bixi islahaa inay barri noqon doonto inuu marka la isugu yimaado dadka ka takoornaado masaajidka marka lagu wada tukado soo gaaru baydho oo maqaaxida marka la isugu yimaado dib loo heshiiyo uu maqaaxida ka baydho oo uu takoornaan doono uu maalin kale isbelkaanbi doono dagaalku sidiisaba maa wax saa loo xiiseeyo maxamed aad baad ugu maadsantay gabayga wanaagsan waxaan rajaynaya inay dad badan kugu dayan doonaan malinka maasunbaa inay raawo inoo saaran baan leeyahay maansadaas iyada kudhadeed waxay ku saabsantay maandaada iminka waxyaabo badan ka soo hadalayo nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshadaba ku saabsan asal baa layahaa waxay la xidhiidhaa iyaduna arrimaha nabadgelyada waxayna sii taabanaysaa bal dadka meel wada yaalla horta waxa qabyaalada leeyahay inaan fahmin anu horta baasha dagaal kula jira waa baasha intii karaamkayga waxa qabyaalada leeyahay inaan fahmin haddaynu qabyaalada fahano qabyaaladu nabar bay dhagaxa waa la tuuraa meel buu ku dhacaa raad buu kaga tagay soo dhagax imika tuurtay meel buu u dhacay raad buu kaga tagay qabyaaladu waa dilaago nabarkaas oo kale ah oo ina dhex yaalla haddaynu ognahay nabarku halka uu ku dhacay nabarka inagu waynu tuurnaa imika qabyaaladu waxay inooga dhigan tahay inay nabar dhex yaallo aynu tuurno balse ismaynaa weydiin halkuu nabarkani ku dhacaya horta nabarkani ku dhacaya haddaynu fahanno nabarkaas halku ku dhacayo aad iyo aad baynu uga dawoobi lahay marka adigu mar kasta waxaad heegan kula jirtay si aad qabyaalada u tirtirto intii karaankayga aan bulshada iyo dhallinyarada ku wacyigelinaya waxaan markaa gabayga tixdana waxa la yahaa asal waxay ka sheekaynaysaa dadkii danwadaagta wada yaalla iyo qabyaalada wada waxyeelayso qabyaalada horta waxaan leeyahay awr ay ku guurtaa bay leedahay waa nabarkaasina awr rataa buu leeyina dhex yaalla awrkuna wayna dhex jooga awrkaas waa ninka inaad arkaysa marka dadkii marka tiriso faamiliga adar wadayaal ama isku gobol ama isku degaan ama isku degmo ama isku tuulo ahee meel wada joogo dadkii muxuu noqonayaa dadku waxa weeye oo dhaliyadii waa intii wax wadaag dadku wuxuu noqonayaa waa yeeyo waa awow waa abti waa habaryar waa sudo waa dumaashi waa oriyo walaal dadku waa intaa ka bixi maayo haddaad dadkiiba qiimaan ku samayso waxaan dhowr iyo 10 qof gaadhin buu isugu soo noqonayaa makhluuq halkaa jooga markaa waxaa qof aad ka maarantaa dadka kuma jiro ninka halmadeer kale dadkaas ku jira waa ninka markaad eegto nolosha xasaasiga bilaadanimada say ku tiirsan tahay waa ninka ugu liita xagga waxtarka in arkaa markaad laanta ku qaadanaya id wanaagsan tahay qabyaalada ka shaqeynaysa xoog galeeda hantilaas markaad liidato ka tag yaa ku qaata markaad liidato
markaad caydha tahay yaa ku qaata cidda ubadkaaga aan ka xishoona xambaaraysaa waa dumaashida waa sodohda waa habaryarta waa eedada waa intaasay noqonaysaa abtigaa haddaad xun tahay lagu bedeli maayo uu iska kaa qaadanaya abtigaa uu ku qaadanaya haddaad liidatona uu ku qaadanaya haddaad fiican tahayna uu ku qaadanaya laakiin aan arkaa markaas fiican tahay kale ku qaadanaya mar kale kuma rabo nin kale bedelkaaga oo wuxuu ka helayo muraadkiisa uu ka helayaa ayuu raacaya oo kugu bedelanaya marka sheekada qabyaalad bay gelaysaa adeerkan haa wuxuuna ku adeegsanayaa markaa cidda uu dan kale markaa waxay odhanaysaa markaa waxay soo tilmaamaysaa war dadkii maxaynu ku bedeli ها نبر كسر قبيلة حكوا دعيا نبر كقبيلة ده هدان تابتور نبر كقبيلة دان شيء وحكوا دعيا إن هذا كام يدك كي أنتي كلا لا دعيسة أنتي وبد كاجا سيدي أنتي هذا كوا قادنا يسدي أنتي مثلا عيدة راح لنا سا أنت محمد حلي ماي كوا دعوة ما صلنا بعض استوى كل كتابه صبت الأسوأ تحرع عليه حق كم إذا deegaan wadarinta ka jirta deegaankeena bay xitaa ka jirtaan qolka sararnahay waxyaalo badan oo imika ka soo dawoobana bay kamid ahayd waqtiyada qaar jira bay kamid ahayd marka aragtay dadkii kasta in kasto family la isku xamaan jiro la oran jiray waa calaf wadaag intaas waa dan wadaag intaas waa caynka baa la oran jiray marka aragtay intii wax ku dhex jiraan oo ay ka soo bilaabantay haddaan reer hebel anagu maxaanu lahayn iyo haddaan reer hebel oo xitaa dadkii hore wixii ay soo wada qabsan la isku haysto la leeyahay dhalinyarada baladay anagu reer hebel maxaa ahaan jirtay maxaanu ahaan jirnay reerkaygaas inay reerkaygaas oo miyay dadkii hore kala lahayn mid wadaag meel hebel la oran jiray markaa maasana waxa leeyahay waxba ay arkayaan indhuhu haddana uurkayga tiro ismaandhaafka iyo waqtigan ibtiya asraarka jira amur weeyaan la fila adduunkaba waxaa luree abaara istaba socdiyo ibtiya aafada ka riday dadkiiba axmaq meedhan iyo markay xangoys noqdeen qabyaaladu waa alhumu qabyaaladu waa alhumu waxay asaroorisaa obsaydna waxay ku tahay indhaha qiiqaga shubtaa intii asalkaba ahayd intii lagu eeran jiray intii la abaysan jiray markuu arrinkaasi yahay intii loo ooyi jiray marka tee addoonkaasita waa abtiga waa min arka wax badan baad kala xishoonaysaa marka aad dayaantahay waa dadkaanu garanayno intii loo ooyi jiray ayaankay bixisay iyo ushii iyo nabaradii halkay uu tunteedu taal ninkii isilowsanow qoraalkan markaad akhrido akhbaarkeedana la soo waxaan doonaa nabarkii tilmaano abtiyo waayeed waxaanu tilmaamaynaa markaa cidda nabarkaasi ku dhacay abtiyo waa eedada in abtiyo habar wadaag ab iyo oor iyo walaal intii kale awow iyo waa ayey abtiyo waa eedada ab iyo oor iyo walaal intii kale oo la mid ah intaa ninka goynaya axaadiistii sharciga siduu eebayna faray amaan asalka u lahayn intaa ninka goynaya ifkana ixtiraan ma laha godkiisa aakhirana amaan wacnuumata arxangoyska bargalo la isku xanaanin wala isku caayi jiray qofka arxangoys wuxuu ku xun yahay abtiyaashu ku xun yahay ciidaashu ku xun yahay maanta sabab lagu faalan waxa leeyahay hebel ma dhageysto faanka kamid tahay oran karnaa marka waxaan leeyahay dhaqankeeni ha lagu noqdo oo qaraabadii ha lagu noqdo oo riximkii ha lagu noqdo oo ha la xiriiriyo shay kasta oo dhaqankeeni oo laga taga arrimaha xalka maanta loola yahay ayay waxa la isugu yeelin jiray waa reer hebel oo baahiyay marka geel laga soo qaado ama dhibaato timaado aniga la dhaafi maayo iyadaan la ninkaas ma yaqaan dadkaas ciidayeen lamana yaqaan isaga reerkaas ma yaqaan taas la isugu yeelin jiray laakiin maanta xalkay ka baxay waxaan leeyahay abkeeni maxaa bedelay maxaa dhaqankii afrogay amuurtu xaqay ka timi abkeeni maxaa bedelay maxaa dhaqankii afrogay amuurtu xaqay ka timi dadkaba oday taalinayo araahda ku meel marshiyo habwaan hal abuur yaqaan markay wax u sheegayeen dadkuba ehel buu ahaa dhammaan anshax buu lahaa iskaashi cad buu lahaa ul lagu eertuu lahaa ab iyo ab kaluu lahaa ul iyo diir buu ahaa amuura hadday dhacaan aleen wariyuu lahaa dhambaal orda buu lahaa aqoon korodhuu lahaa
hal soo afjarmuu lahaa حسوا أفترون asoo nin galuu lahaa abaal nin guduu lahaa ilaashi dambuu lahaa axdiga cid martuu lahaa dad aamina buu lahaa adkaysan dambuu lahaa كيسن الله markaad arrimaha socdiyo axwaasha u fiirsataan markaad arrimaha socdiyo axwaasha u fiirsataan dhab weeyaan aakhir sabin aftoolinin loogu baxay macnaha xaaladdu say u socotay iyo say dhaqankeennii iyo wixeenni oo diinta iyo dhaqankeennii marka la soo horna maba ay kala fogeen dhaqankii soomaalida weliba reer waqooyi marka la yaabo ama reer somaliland dadka dhaqanka iyo hadday tahay suugaanta aad loogu hadlo soomaalida marka ta ka suntan bay ahaayeen markaa waxaad dee moodaa aftoolinka waxaa la yidhaha meesha faran tahay in axsan mooyo cid kale kaa xigto waxaad moodaa intaba dee looga baxay waxaan kasoo sheekaynay o dhan markaad arrimaha socday axwaasha u fiirsataan dhab weeyaan akhrisaban aftoolin loogu baxay haddaan alla laga baqayn asxaan lagu laabanayn haddaan agabkii la qubay dib loo soo ururinayn hubaashii inaan ragow god akhrisamaan iyo uban dul taagana سوان iyo uban dul taagana maasadana waxaan doonaya asal baa layahaa halkaa inaan iyana kusoo koobo intaa inaga dhiwaan محمد أنت كلي أبدو ما سمعت عن روج بيا معانك ما ترى قف كل يرجع لي أبا قف مركز طاق جرت هذا قاعة inta badan haddaad dadku maxaa ku jira bay odhanayaan waxaad ka shaqaynayso haddaan waxa ama markaa macaash ku jiran oo lacag ku jirin oo waxa lacag markaa ama macaash markii la kala qaadanaya ku jirin dadku ama wax kale oo dadku imka waxba la xiisaya waxa la dhahaa niyow waxba la igu yidhaahdaa inta badan caqabadiga haysta oo niyow gabaya saamayn la tiri markaa waxaan dhahaa gabayada saamayn tahay waa kuwa dee dad balse nin baa la su-aalo waxa la yidhi bal nin baa maamaada wuxuu yidhi de iyadoo wax badan oo dhacay markaa la weydiye waxa la yidhi maxaa u dambeeyey maxaa u dambeeyey wuxuu yidhi mid waxa u dambeeyey kaa la siiso horta wax kasta waxa kugu xun waxa markaa kaa naxsada isagoo wixii shalay ku soo maray ama wixii duraad ku soo maray kaba awood yar waxa markaa kaa naxsadeen baa maskaxdaada saamayn 90% ama 99 ku yeelanaya arrintaas su-aashii waxaan u malaynayaa haddaan islaaho wax ka taabo wax badan maskaxda saamayn kula wey jiraan alxamdulillahi rabbilcaalamiinna weli wax daweyn oo imika saa taariikhda u galo aan dhaho aniga ila soo kulmay maxamed ahaan oo dhibaato la yaabi ma jiraan dadku aysa lagama gudbo balse waxaan u lahaa anigoo dhalinyaro ciyaala waxaa jirta berigii dagaalka dheerka lagu jiray qaxi ee Soomaaliya xornimadeeda ay u dagaalamaysa markaa waxaan isweydiin jiray kelmad marka waddanka laga baxay anigu waan yaraa markaa safariyan joognay waxaan joognay markaan arko dadkii oo lagu eriyay kaarayaal iyo waxaas waxdaan imanka aan deel bax ku noo aanan garanaynin iyo qasaarihi iyo wixii markaa hadda xasuuqi ka socday reer Soomaaliland ka socday inaan isweydiin jiray anigu aad u daayira mashin jira bil jira aan isweydiin jiray talo waxaan ma ka baxaysaan mise waad ku jiraysaa balse kelmadii markaan imanka xusuusto ay saameyn weyn ay ugu leedahay أبدو ما سمعت محمد قرت سؤال بدل ما كسوي ديرتي وما هري لكن بلا دينك على حاجة أيها هساويه كل ده وين باتي مركها هساوي هري هساوي ما لجيت إذا دفرتي أول الحياة بس صوت أول حيسة من ده بيجي أي ما هساوي ورا سمرنا ما ده هساوي وسوكتي ka oran lahaa horta aad baa looga hadlaa markaa waxaan odhan lahaa ha lagu noqdo dhalinyaradu ha ku noqotaa haasaawihii hore oo afka weeye waxa la bedelay iyo dhaqankee war afka iyo dhaqanka kii hore lagu celiyo waayo kan dambe laba dhaliilood buu yeeshay horta waa wax cusub oo la kordhiyo bulshadii xilliga ay wada qaadanaysaa waa xilli sii dheer markaa dee boqolkiiba markay iminka dhalinyarada dambe 60 isla fahanto 40 kale isfahan la'aan ayaa ka haysto isfahan la'aantaas waqti kaga dhaca taas dhaliil buu kuleeyahay waxaan la iska daayay ta kale waxaan leeyahay war dhaqankeennii hore shariicada kii hore u dhawaayay kii hore loo daay oo ka dambe wuxuu wataa lacag wuxuu wataa waxyaalaha inaan u shaqaysan wuxuu wataa imtixaan oo dhan wax badan bayna waxaan leeyahay ما دوا لا اسمه قابلك محمد أدين سؤال شيء تاكلنا
adigu si isku tihiin maasooyinka jacaylka waxaa la isku daray horta kelmadda jacayl si isku tihiin kelmadda jacaylka anagu isku macni horena waan u sheegay ayuu warasi horena waan ku sheegay laakiin dareenka bulshada marba wacay marba macnaha dad bulshada aad meesha kula nooshahay uun baad la wadaagaysaa marka tii jacaylkana waan dib dib hadda la dhigo bari waxba ka dhiman laakiin jacaylka isaga waxa leedahay isma wanaagsan مهيبات ماسين مهمين ماسين لكن وصيدا طبعا ما دليل قدلبت way way jiraan dhalinyaro qadalbatay heeso badan oo tiraahda arinta noocaasa ayaan labadii qaybood ba dila jaan qaadi karo labadii dhaqan wax ka fahmayaan hay marka waxaan lahaa qaran baynu nahay dadkii dhalinyaradeena dambe waxaad ka maqlaysaa ama aqoonsi ma haysano ama dhulkeena macna caynkaas ma yaalan waxa jirta riwaayadan ka diyaariyay ba arinta noocaas oo la yiraahdo oo le تعليل لو دريت هين وحقبت بيتك ستا عندنا دوان سو بندقنا وحالا هدفتي إير دقاله وحكو جرا دولكينا وتبع دولكينا وسمرة دولكينا ودينتا قرننا دولكينا نبعة كوشرتا قرننا السومالا هذا سكربتها هذه يا طول ما تتصل سنة وقت هذا الموضوع وحنا رجينا إنه وقت كان برنامج لما ذلك كل مدونه هذه يا وقت هذا مرة غادي مركوبات وكاجم هذا علمنا تاوضيال هدين isku soo noqono barnaamij waxa la socodsiin saani baa Amira Cabdullaahi Caliya inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala.